الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وزيرada generaalka taliye ku-xigeenka koobaad ee biliska gudoomiyaha gobolka Boqortooyo maayar ku-xigeenka Cajisuudi warbaahinta wasiir ku-xigeenka maaliyadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan maanta shirkan sharaa'idan ka qabanaynaa sida lala wada socdo bulshada reer Somaliland oo dhan intii arrinkan xanuunkan caalamka imika ku habsaday ee loo bixiyay waa masiibo caalami ah. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu u magacaabay guddi heer qaran ah. saxaafadana waa kuwii go'aamada ka jeediyey. guddidaasi waxa ujeedadeedu ay tahay inaynu ka hortag iyo ka gaashaamasho iyo maxaanku dhahday dadkeena wacyigelin loo sameeyo xanuunkan loo bixiyay coronavirus. isla markii guddidaas laga howlgalay ee hawshaa loo magacaabay, madaxweynuhuna shirkii ugu horreysay uu ka hadlay. waxaa kaloo xukuumaddu go-aansatay in ganacsatada dalka wax soo dejisa, hadday raashin tahay, hadday shidaal tahay, hadday qalab dhismo tahay, hadday daawo tahay, in iyaguna ay xukuumaddu la kulanto iyadoo ay horkacayso oo hogaaminayaan guddoomiyaha iyo mas-uuliyiinta kale rugta ganacsiga. ujeedada ganacsatada loola kulmayena waxa weeye in marka ugu horeysa, maadaama caalamka oo dhan imika dhaqaalihiisina hoos u dhacay, xayiraad fara badanina ganacsigii ay ku dhacday, inaan dalka reer Somaliland, bulshada reer Somaliland aanay ku kala dhicin kala go raashin iyo daawooyin intaba. maanta waxaa shir jaraa'id qabtay guddoomiyaha rugta ganacsiga oo ay weheliyaan ganacsatada waaweyn ee dalka iyo gobolka iyo degmada mas-uuliyiinta maxaanku dhahday Hargeysa iyo guud ahaan gobolka Daadmareeb. shirkan ujeedada maanta aan u qabanay waxa weeye, waxaa si fiican loo soo sheegay meelaha qaarkoodna la xaqiijinayaa in raashinkii dadka qiimo kac uu ku dhacayo oo ganacsatadii qaar ka mid ahi ay raashinkii kicinayaan, in daawooyinkii oo tilmaamihii iyo awaamiirtii ay soo bixiyeen guddiga heer qaran ee coronavirus dalka laga saarayo. ganacsiga adduunka waynu ku xidhannahay, dalalkeena jaarkaa waynu ku xidhannahay, laakiin marka ay gaadho in arintani masiibo caalamiya loo bixiyey, ayay dal walbana haddana waxay ku tahay masiibo qaran ayay dal walba ku tahay. dal waliba wuu is ururinaya. ummad kasta oo dal ku nool, hadday tahay dowladda iyo hadday tahay ganacsiga iyo haddii ay tahay shicib weynaha, waxaa loo wada dhaqmayaa si gooni ah, si maxaanku dhahday isku mid ah. waxaa laga wada midoobayaa barnaamijkaas sida loo meel marinayo, waayo xanuunkani cid gaara uma calaamadsana, cid walba wuu calaamadsan yahay. ganacsatadu maanta iyagoo aada iyo aada u mahadsan, waxa ay sheegeen macal rugta ganacsigu inaanu jirin raashin la-aan. waa laba, inaan raashinka qiimo koror ku kordhayna aanu jirin. waa saddex, ciddii raashinkaa qaaligaraysa in ay ganacsatada iyo rugta ganacsigu dowladda kala shaqaynayaan sidii dadkaa tallaabo looga qaadi lahaa. maanta oo kale waa qaran howl culus ku jira oo aynu adduunyada la wadaagno. marka ugu horeysa, qofka ummadda raashinka, rag waxaa la sheegayaa inay raashinkii urursanayaan oo istoodho gaara dhiganayaan.
waxaa la leeyahay qaar raashinkii way kicinayaan. jaraa'idka maanta qaar baa qoray, waanu haynaa, waa la keeni doonaa, meeshii xogta ka helayna waa la keeni doonaa, oo ay sheegayaan oo ay leeyihiin raashinkii gadbada bariiska ah oo cagacagaynaysa $50, oo cagacagaynaysa $50. wararka qaar waa khalkhalin dalka iyo ummadda khalkhal lagu ridayo. wararka qaarna waa niman dhiig miirata ah oo doonayo ummaddan xanuunkan ka feejignaanaysa in maxaanku dhahdaye ay dhiig miirasho ku noqdaan. maanta markaa dadka waxaan wargelinaynaa, halkan waxaa fadhiya taliyihii biliiska, taliyihii koobaad, mas-uuliyiintii degmada, gobolka. waxaa kale oo aan u sheegaynaa dhammaan gobolada dalka ayaan warkan ku baahinaynaa. oo marka ugu horeysa waxa wax laga bedelay, horena aan noo sheegnay, gudiyadii nabadgelyada ee gobolada. gudiyada nabadgelyada ee gobolka xeer baa qeexa xubnaha guddiga nabadgelyada gobolka noqonaya. gudiyada waxaa lagu daray imika isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka, isuduwaha wasaaradda warfaafinta, isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta. wasaaradda daakhiliga waxaa ka jooga barasaabada, waxaa ka jooga meeyarada ayaa iyaga ka jooga. wasaaradahan ku jira maxaan ku rahdaye guddiga heer qaran ayaa isuduwayaashoodu ay ku jiraan. barnaamijka lagu shaqaynayaa imika ilaa iyo heer qaran, laga bilaabo madaxweynaha, laga bilaabo ilaa iyo mas-uuliyadda heer tuulaha, degmada, gobolka, heer qaran, waxaa lagu shaqaynayaa tilmaamaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka. oo iyaga dhakhaatiirtii halkaasay inoo joogtaa, farsamo yaqaanadii halkaasay inoo joogaan. xanuunku waa xanuun halis ah, waxaa la adeegsanayaa waa awood caafimaad iyo cilmi caafimaad ayaa lagu shaqaynaya. marka waxaan faraynaa maanta dhammaan gudiyada nabadgelyada gobolada, ciidanka biliiska, ciidamada kale ee nabadgelyada ee qaranka, gudoomiyeyaasha meeyarada, xildhibaanada degmooyinka, meeyarada degmooyinka aan xildhibaanada laga dooran, inay si joogto ah ula socdaan ganacsatada, dukaamada, bakhaarleyda, qiimaha raashinka lagu iibinayo. cid allaale iyo ciddii maxaanku dhahdaye lagu arko in ay sicirkii kicinayaan, in tallaabo laga qaado, in sharciga la hortaago, in ganacsigooda la xidho. bulshada reer Somaliland waxaan ku wargelinaynaa had iyo jeer waxyaalo fara badan bay bulshadu iyagu mas'uul ka yihiin. waxay mas'uul ka yihiin ninkii gadbada bariiska daqiiqada ah maxaan ku dhahdaye bakhaarada waaweyn $15, $20 ama qiimo kastoo joogto ka soo siistay, inuu markuu bakhaarka keeno ama dukaanka keeno uu laba jibaar ku iibiyo. ilaahayna doorkan wuu ku cunaqabataynaya. ummadana maxaan ku dhahdaye dembiga ay ku galeen waa laga goynaya. dowladuna way raacaysaa oo way tallaabay ka qaadaysaa, sharciga la horgeynaya. lama ogolaanayo dadka Somaliland ee heerkeena dhaqaaluhu halkuu jooga aynu garanayno, ee 90% danyarta u badan, ee 30% ilaa iyo 40 barakaca ah. ninka maanta raashinka ku ciqaaba, ilaahay ifkana wuu ku ciqaabaya, aakhirana wuu ku ciqaabaya. ganacsigana de quraanka ilaahay wuu ku sheegay, axaadiistii rasuulka wuu ku sheegay waxa inuu qofku macaasho loo ogol yahay. maantana waa maalintii ummadda loo naxariisanayay. dad baa maanta inaga soo caawinaya. hay-adda binu salmaan raashin fara badan bay qaybinaysaa
oo maxaan ku dhahday dalka loo qaybinayaa iyadoo dad fara badan ay ka naxayaan oo inaga caawinayaan inaynu inaku isciqaabnana laynaga garaysan maayo. marka kow ciidamada waxaa kaloo dadka loo sheegayaa guddidii heer qaran qaraar bay soo saartay. qaraarkaa guddidii heer qaran baa saxeexday dhammaan biliiska iyo ciidamada oo dhan iyo waa loo yeedhay. xeer bay noqonaysaa maxkamadaha lagu taago qofka haddii uu ku kaco waxyaalo khilaafsan maxaan ku dhahday go-aamada laga soo saaray ee loogu talagalay in dadka lagaga samata bixiyo lagaga hortago xanuunka ilaahay inooma keene. marka dadka waxaan u sheegaynaa bulshada dadka shicibka ah idinkaa wax iibsanaya idinkaa sariibadaha iyo maxaan ku dhahday ku jira coronavirus baynu la dagaalamaynaa. waxaynu gedigeen haddana la dagaalamaynaa dad kale oo coronavirus nagu noqda oo ina cunaqabateeya. waa coronavirus labaad ayaynu ka talinaynaa. mar haddaanay inoo naxaynin inakuna waa inaynu iska qabanaa. aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa rugta ganacsiga iyo maxaan ku dhahday ganacsatada dalka labadii shirarka ay la galeen golaha wasiirada iyo maanta shirki iyaga oo gaara oo ganacsato ah oo rugtoodii ganacsiga watana ay maxaan ku dhahday ka galeen. dagaal baynu ku jirnaa. adduunyadii dhaqaalaha badan lahayd dalalkii adduunyada ugu dhaqaalaha badnaa ayaynu telefishinada waxaynu ka maqlaynaa cabaadka iyo qaylada ka dhacaysa. marka waxaan faraynaa cid allaaliya cidda hawshaa shaqo ku leh inay maxaan ku dhahday la sameeyo inay aada u shaqeeyaan guddiyada xaafaduhu ee nabadgelyadu ee gobol walba inay dumarku shaqeeyaan inay dadka shicibkii shaqeeyaan. cidda wax laga iibinaya waa iyaga. cidda lacagta qaadanaysa maxaan ku dhahday laga qaadaya waa iyaga. cidda aan u naxariisanaynin waa inaanay iyaguna qarinin oo aanay maxaan ku dhahday oo aanay tallaabo ka qaadin. midda labaad adduunyadoo dhan dadkii cilmigan yaqiinay waxay aada iyo aada usoo maxaan ku dhahday loo xaqiijiyey waxa ugu horeeya ee layskaga difaaci kara ama lagaga badbaadi karaa kow waa habdhaqanka qofka inaanu meel bulsha ku badan tahay aanu ka qeyb gelin inuu mar walba saabuun ku faraxalanayo inaanu si toosa dadka dhexdiisa ugu ficin in caruurtiisa guriga lagu ilaaliyo. qodobkaasi waa muhiim. ardada fasaxoodii maantuu bilaabmayaa. ardada waxaynu doonaynay oo wasaaradda tacliinta dhakhaatiirtii ay ku taliyeen iskuul walba waxaa laga yaabaa inay dhowr boqoloo qof ku jira. qaar baa laga yaabaa inay 2,000 ku jiraan kuwa maxaan ku dhahday double streamka oo kale. qaar baa boordina oo aan bixin. in bulshada faraha badan ee isu imanaysa aynu yarayno. waalidkii maxaa laga rabaa ilmihiisii haddii taa lagala soo cararay inuu caruurtiisii guriga ku ilaaliyo oo iyaguna aanay suuqii kaga qeyb gelin la kulan bulsho fara badan. goroomadii cayaaraha waynu xidhnay. caruurtoodii fasaxayd waa inay garoomada cayaaraha ka xidhaan. meelahaan nadiifta ahayn inaanay caruurtoodii tegin. caruurtoodu inay guriga joogaan. caruurtooda in lagu barbaariyo inay faraha iska dhaqaan. waxyaalaha kale dhakhaatiirtii iyo gidigood la wada sheegay waxa weeye inaan meelaha bulshadu ku badan tahay inaan la tegin. waxaa kaloo lagama maarmaana in dhammaan reer somaliland ilaa iyo qoyska guriga ilaa iyo dowladda hoose ilaa iyo hay-adaha dowladda in gidigeed laga wada shaqeynayo nadaafadda. waxaan farayaa dhammaan meeyarada iyo golayaasha deegaanka ee dalka in ay ololo nadaafadeed 2 usbuuc ee soo socda ay sameeyaan. barasaabada goboladuna ay ku kontaroolaan degmadii nadaafadda ka shaqeyn weydana aynu tallaabo ka qaadno.
heer mas-uuliyiintooda shaqada leh gudiyada kambaniyada dowladaha hoose qaarkood ay heshiiska kula galeen nadaafada ee xaafada u qaabilsan ama degmada waxaan faraynaa in ay hawshooda qabtaan meeradana waxaan farayaa in kambanigii hawshiisa kasoo bixi waaya in maxaanku idhahda qandaraaska laga qaado shaqadana laga joojiyo laga bilaabo wiigana kormeer baa lagu marayaa gudiyada nabadgelyada ee goboladu kormeer bay ku marayaan gudiyada heer qaran kormeer bay ku marayaan waxaynu markaa isugu wada tegaynaa haddii alla yidhaahdo inaynu gidigeen dagaal hor la gallo xanuunkaa iska caabino ilaahay la kaashano cibaadaysano ilaahay barino nimanka maxaanku idhaahdayey sicir bararka inagu samaynayana inana waynu iska qabanaynaa ilaahayna waynu ka ashkateynayna aada iyo aad baa u mahadsantiin